maanta waxaan u joognaa ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa loo baahan yahay in waxaan ka faa'iidaysano annagoo faa'iido haysano aan meeshaan ka tagno oolaadda aan meeshaan keenay inay ka faa'iidaystaan si ay micnaha markay xaafadda tagaan ay uga sheekeeyaan maanta meeshii wixii ka dhacay laakiin hadda waxaan u jeedaa in xoogaa yar aad iyo aad maqalka uu liito marka sidaa daraaddeed waxaan kaloo ogeysiinayaa dhammaan reer burlaanka fatahaadihii ka dhacay shabeellaha hoose shabeellaha dhexe jubbooyinka beledweyne marka calaa qadri daaqa qof walba wuxuu ka qayb qaadan karo inuu micnaha meeshaas ku sadaqaysto annagana waan qabanaynaa hadduu ilaahay qadaro idinkana qof walbaba qofku u awoodo inuu wax u diro inuu meeshaas sadaqaja oo ay wanaagsan oo u dirsado ayaan isku baraarujinaynaa midda xigta insha allahu tacaala mawduucyada badan noo dhiman hadduu ilaahay qadaro culamo badan noo joogto waxaan aad bar labaad iyo mar saddexaad ugu soo celcelinaa dhallinyarada iyo ilmaha yararka bal in xoogaa yar inta la awoodo la xakameeyo insha allahu tacaala sadaqadaas iyo dadkaas dhibaataysan fatahaadahaas oo aad dhibaato xooggan u hayso iyagana qofku wax awoodo inuu sadaqaysto dhalinyaro badanaa joogto meesha loo dhiibi karaa farxaanaa joogo cabdicasiis yaqliiraa joogo aniga lii dhiibi karaa mar walba qof walba wuxuu awoodo iswiisha deetaa haddii ka ishtahay dhammaan waa wada qabanaynaa insha allahu tacaala si aan ugu dirno walaaleen dhibaatada haysato kuwa geelaha jiifo korkooda kuwa banaanaha joogo kuwa aan hoygaysan waxaasoo dhan waa ka caawin doontaa insha allahu tacaala sadaqada yaraan male 5 karoon hadaa dhiibto 100 karoon hadaa dhiibto meelay ka soo baxaysaa insha allahu tacaala haddana xoogaa madaxii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku soo dhaweynaa sheekaa falay tafadal سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم والله ما ضلعت شمس ولا غربت يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم كما هو بأنفاسي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك كما هو بأنفاسي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم ولو قدرت على الإتيان جئتكم يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم سعيا على راسي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على واجبا سعيا على راسي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم جلست إلى قوم نحدثهم يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام الحرم سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي
يا نبي يا إمام العالمين عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام العالمين الحبيب الذي تقدر شفاعته عند المقام ما الخلق يا جاهل يا نبي يا إمام waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirada rasuulka noo dul mari doona insha allahu isagoo 20 daqiiqo haysta insha allahu tacaala aan rajaynayna inuu kusoo koobi doono maadaama culimada ay badan tahay sheekh muxudiin xirsi falyatafadal mashkuuran الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إخواني في الله قصيدة هذا الشيخ ظاهر ونوقال هي وحاكو جري نبينا أحمد إياك أن تجهل نبينا صلى الله عليه وسلم أحمد إياك كدكتونو أن تجهل إن جاهل كأهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادح رسولك أمامي صلى الله عليه وسلم waxaan rabaa marka annagoo ka ambaqaadayna halka iyo waxa la midka oo inta badan culammadu ay nooga sheekeeyeen inaan in yar siirada rasuulka ka sheekeeyo siirada rasuulka markii la yidhaahdo waqti kooban oo 20 daqiiqa laguma soo koobi karo waad ogtihiin kutubu siyar intay cadad la yihiin iyo inta ay yihiin ilaahay baa ka warqaba ay u xisaaban yihiin intaasina nabiga jaanibkiisa unbay ka wada hadlayaan oo si kala duwan uga hadlayaan laakiin annaga hadda waxaan u dabaacan leenahay siirada ka warran markii la yidhaahdo inaa wilaadadii rasuulka iyo maxaan ku yidhaahdaa bicithadiisii iyo ilaa maaragtay geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa liqaa'i raxmatii markuu u wareegay wixii ka horreeyey oo maaragtay kookooban in wax laga soo qaado nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa jiray hameenkii uu dhashay qisooyin aad u cajiib oo dhacay waxaase ka sii horreeyey oo maaragtay nabigu inta uusan dhalanba ka sii horreeyey dhowr dhacdo oo waaweyn oo jaanis iyo hadda waqti looga hadlo aan lahayn waxaa ka mid ahaa sababtii ceelkaa la yidhaahdo bi'ru zamzama uu u qoray uu u qoday cabdulmudalib
waxay ahayd horudhac tusinayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxaa ka mid ahayd nadru abiihi cabdillaah in la nadray oo aabbihii cabdullaah gowrac in la gowraco lagu nadray ayaduna sabab waxay ahayd kaleeto oo ka sii horraysay bay ahayd. waxaa ka sii horreeyey qisadii maxaan ku yidhaahdaa abraha iyo maroodigii. waxyaabahaasoo dhan siyarka nabigan markii laga hadlayo jaanibkiisa waa lagu soo qaadaa oo siirada ayaa lagu soo qaadaa. muraadkeennu hadda ma aha mid kasta oo ka midihii aaday u dheer tahay, laakiin rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam wilaadadiisa markii laga hadlo horta nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan rabaa inaan ka soo bilaabo wilaadadiisa wixii aan ka gaarana aan taataabto haddii alla yidhaahdo waqtigoo iska kooban dartiisa. nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa la dhalay sanadkii la odhan jiray caamulfiil. waxaan jeclaan lahaa dhallinyaradu maaragtay dadka inta waaweyn aad bay u garanayaan haddii alla yidhaahdo rasuulka abtirkiisa iyo murdicaadkiisa iyo dhallinyaradu haddii ay jaanis helaan oo ay ka faa'iidaystaan oo si fiican u dhegaystaan aad bay u fiicnaan lahayd haddii alla yidhaahdo. marka nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa la dhalay sanadka la yidhaahdo caamulfiil qubayla fajri yowmi alithnayn. maalin ithniin ah fajarkeeda horyarowgiisa ayaa la dhalay sida yacnii ugu raajaxah oo aqwaasha ugu raajixsan oo bisha rabiicul awal oo hadda aan ku jirno 12-keeda ku beegan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam welida yatiiman waxaa la dhalay asagoo agoon ah. aabbihiis wuxuu geeriyooday rasuulka oo 2 bilood caloosha hooyadii ku jira ayuu geeriyooday aabbihii cabdullaahi binu cabdilmutalib rasuulka aabbihii. markii rasuulku uu dhashay hameenkaasi waxay ahayd hameen aad u mucjiso badan. xamligiisiba inta caloosha uu ku jiray gabadhii la odhan jiray aamina bintu wahab rasuulku markuu ka warramay wuxuu yidhi ra'at ummii xiina xamalat bii. hooyaday waxay aragtay markii aniga ay uurowday annahaa kharaja minhaa nuurun adaa'a lahaa qusuura shaam, inuu ka soo baxay nuur oo shaam daarihiisii ifiyey inuu ka soo baxay ayay aragtay. yacnii waxa weeye waa bishaarooyinkii nabigu intuusan dhalanba ka sii horreeyey weeye. rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam intii uu caloosha ku jiray aamina bintu wahab markii ay ka warramaysa waxay tidhi anigu maba aana helinba dumarku waxa ay helaan. waxaa la yaqaanaa gabadhu markay uur yeelato waxay heshaa waxa la yidhaahdo xaraar, waxay heshaa culays, waxay gashaa ayada dhanba waqti iyo duruuf aysan horay u aqoon ayaa la soo daristo ay gashaa. laakiin waxay tidhi aamina bintulwahab markii ay ka warramaysay rasuulka sha'nigiisa iyo waqtigii xamliga ay siday oo caloosha ay ku siday waxay tidhi anigu ma aanan helin waxa dumarku ay helaan markay uur yeeshaan. xaraar ma aana arag, culays iyo dhib kale ma aana arag. wax maaragtay maxaan ku idhaahdaa dumarku waxa dhibaho ay helaanba kolligiis anigu ma aana helin bay tidhi. waxay ka mid ahayd waxyaabihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii inta uusa dhalanba la sii dareemahayey oo maxaan ku idhahdaa caloosha uu ku jira la sii dareemahayay bay ka mid ahayd. hameenkii rasuulkeennu uu dhashay sala allahu calayhi wasalam waxyaabo weyn oo waaqacaada ayaa dhacay. horta rasuulka daatadiisa markii uu dhashay wuxuu ahaa ilmaha dhasha waa uu ka duwnaa, sha'ni ka duwan ayuu ku dhashay. kitaabka barsanjigaa la yidhaha mawlidka caawa la akrinahayo wuxuu noo sheegayaa sida oo maaragtay kituubta badanna way qorhayaan. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo daahirayo adduunkan uu yimid waadican yadayhi cala alardi asagoo labadiisa gacmood dhulka dhiganaya. ma naqaana dhaqanka ah ma la arkay weligeen ilmay hadda dhashay oo haddana gacmihiisa cuskanaya ma la ark.
سورة كلمة رسولك صلى الله عليه وسلم سلاسي شيخ قراسية أصلا أعميه سبولك بغنها يا أيوة شهميك مثلا وحكسي كرني رافعا رأسه إلى السماء ماذا في السماء قرر وقالها يوم سماء إيه هي أيوة الشيء رسولك صلى الله عليه وسلم وهذا الشيء أصلا طيبا دهينا مكحولة بكل عناية عينه أصلا أدقها الله سبكي وإن كولا أيوة الشيء رسولك صلى الله عليه وسلم يا وقت حاصل كلياك ويعني وحجبه وتلمامها يا شأن الرسول كي وينك سهنيك ولا شيء كداهر أيوة إنك الصولي يداهده عبد المطلب قدي أصلا وحال الشيء مخطور وهاي قدنا أيضا نوع الشيء وحكى رسولك صلى الله عليه وسلم أها مقطوع السر بها مقطوع السرة أما مقطوع السر لو أنا معناه وين ويجران مقطوع السر خدنتيسا مثل الجوي أيوة هاوي وتاس مركب محوية هاي المهم مركب عشان سيدا اللوحة هذا اللي هاي وحال السماية والله خدن جوي بهاش اللي يراد الصومالي دو مرع عربي ومرع كله كل هذا لكن صومالي إيبي أيوة جانم وإلمه النفقة أي كقاتان أي خدمته وبحرا مركا خدمتي سوال الشرع إلمه مركا أودا شو أجر رسولك صلى الله عليه وسلم أصغر قصد رباني إلهي حقي سلوه خدم قوي أيودا شيء رسولك صلى الله عليه وسلم أنا كاس يعني مركي رسول النبي عليه السلام صلى جيسه وحيابها مردودة الله إنه كجرا لما سوء عليه عبادتك لو حلقة ما يستطيع سيئة دنيا كان يقول سوء عليه أمورك له لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه توس يا لو أجيب يا كل بوين بدرنا وفريا دي الله يدمو طب بدرنا يا دعاء صوت المضي استبجوك يا لو كنت عندنا إن شاء الله تعالى من خطك النصر دوالو دول قاضي صبر أنا يلا ولما أجي الله وين يا عينود من هو استبجوك أنا كفى إلي سنو وأمركان الميكروفون كوسو دوينا إن شاء الله شيخ ياسين وكان دور هذه الله يراهو سببت احتفال كان سبون نمت فائدة نيسا إيوه وحي اللي حريرو لنبا حق الدينيا استقع يانو هذا دور إن شاء الله تعالى مقالة الوظيفيكاي والنوغي يمت أخياتك لما قالوا يشرق وفق أي نوغي مدن استوكا ما يكمتهاي يوروبنو يقوال هالمعلمة إلا يمهوها أبصارا فليتفضل شيخ ياسين مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين marka hore jamaacada meesha iskugu timid rag iyo dumar saqiir iyo kabiir waxaan leeyahay maadaama nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi man salla alayya marratan sallallahu alayhi biha 10 inaan nabiga aan ku sallino ruux kastaba 10 jeer ruux kastaba nabiga 10 jeer ha ku salliyo dhalinyarada maqlaysaan dhalinyarada dhexe oo iga soo horjeedo aad bay u sheekeynayaan nabiga 10 jeer aan ku sallino allahumma salli ala muhammad 10 jeer nabiga salligiisa sida xadiidka nabiga uu ku leeyahay asagaba uu leeyahay wuxuu leeyahay nabiga
ninkii ugu salliyo hal mar ilaahay baa wuxuu ku sallinayaa 10 jeer haddaad ku salliso 2 jeer waa 20 jeer haddaad 100 jeer ku salliso waa 1,000 jeer 1,000 jeer buu ilaahay ayuu ku naxariisanaya as-salaatu min allaahi ar-raxma ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء محان aan iskugu nimid oo nabiga احتفالkiisa aan u dhigaynaa لماذا نحتفل maxaan u احتفاalaynaa sababkaan u احتفاalaynaa waa maxay إن شاء الله تعالى إن أنك قاري ويا لقى يابا لكن مدة كوباد وحاوية وفرح نبي أيامكم فرح سنة هاي صلوات ربي وسلامه عليه مدة لبعض وحاوية aan u dabaaldegayno oo nabiga aan u weynaynayno salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waxaa weeyaan mukaafa'a nabiga ayaan u abaalgudaynaa akhrajanaa min aldalaali ila alhudaa wa min aldulmati ila alnuur wa min aljahli ila alcilm maadaama nabiga intaas oo mushkilada uu naga saaray asaga ayaan macnaha u beegtoomaynaa oo u abaalgudaynaa in caasi la noqdo lama rabo waxyaalaha aan nabiga ugu dabaaldegayna waxaa ka mid a tacdiim nabiga waan weynaynaynaa waxyaalaha nabiga aan ugu dabaaldegayna ee sababka annaga ugu dabaaldegayna waxaa ka mid ah shacaa'irta ilaahay ayaan kor u qaadayna waman yucadima shacaa'ir allahi fa innaha min taqwa alquluub waxaa nabiga ugu dabaaldegaynaa muxabba nabiga ayaan jecelnahay waxaa nabiga ugu dabaaldegaynaa shukran ilaahay baan ugu shukrinaynaa nabiga noo soo diray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waxaan ugu dabaaldegayna waxaa weeyaan waa farax qaala subxaanahu wa tacaala qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu fadliga ilaahay fadlullaahi alcilm ayuu leeyahay xabrulumma ibnu cabbaas قل بفضل الله وبرحمته ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم فليفرحوا فكفر حانو مركا نبيغا من أعظم المعنى وحاويان رحمة نحريست إلهي وكيني مدعوه وين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تفسير الآية بالآية معناها آيات داس رحمة أي شيء جيسا إنه يهي النبي محمد وكو كيهي وحاكتو سيسو وما أرسلناك نبي محمد وكما آمن صادر إلا رحمة للعالمين إن أضبطها معناها عالم كوردن نحريس مويان نبي وحولي صلوات ربي وسلامه عليه حديث ورنها يا إمام البيهقي إمام الدارمي يا أيها الناس إنما بعثت يا أيها الناس دضوا وحولي يا دضوا إنما أنا رحمة مهداة دضوا إنما أنا ما أنا أريق به
إلا رحمة مهداة معناه نحريس لليسو هدية هدية من الله إله ما نوسو هدية مركا ما دام إله هدية محالتها هدية هي صدقه هي هبه ويكلمين هدية وحالتها وحي إكرام لبقسيي وحي إكرام لبقسيي وحالتها هدية وحي لبقسيي حوغا أدوغ الهوس لبقوديك هيانا محالتها صدقة لدها marka ruuxu weyn waxa siinaysa waan kugu sadaqaysa lama dhaho waan ku soo hadiyay baa la dhahaa hibadane qabuul iyo ijaaba ayada ayaa bashardi oo xagga fiqiga hadii la fiiriyo marka wuxuu leeyahay nabiga yaa ayuhan naas innamaa ana rahmatun muhdaa dadoo waxaan ahay naxariis idin soo hadiyay way marka saa daraadeed nabiga rahmad uu yahay ayaa nabiga ugu farxaynaa farax sababka aan nabiga ugu dabaaldegayno waan ku faraxsanahay xagee loo dhaafa nabiga aan ku farxahaya ruux hadduu ku dhaho xageed kaloo macna maxaad kale ka raadinaysaa nabiga ha ku farxin miyaad odhanaysaa war adiga nabiga aan ku faraxsana mushkiladda maanta taalla waxaa weeye haddii la dhaho caawo liiclaamin la waxaan filayaa culamada 2 bilo ka hor ayay iclaamiyeen in mawliidka laga dhigi doono quulenga 16 oo maanta soo ma ahayn marka goolka waa kan waxa weeyaan hadii hadda loo kala qaybiyo 4 kameelood meel ruux miya 3 kameelood meel baan dhahnaa marka ayaa banaa haddii la dhihi lahaa ka waran waxaa loo dabaaldegayaa kowda luuliyo ayaa loo dabaaldegayaa maalintii xorriyadda ayaa haddii la dhahaa ka waran goolkan waxaa weeyaan meel la istaago lama helan soo maa marka haddii la dhaho maalinkii xorriyadda isbarbardhig maalinka xorriyadda waa run innaga qiimi weyn bay noo leedahay haddaan nahay Soomaali laakiinse maxaa nooga qiimi weyn nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh asaga ayaa mugdigii naga saaray oo nuurka noo soo saaray asaga ayaa naartii naga koriyey oo hanuun noo horseeday marka waa dhiba midda kale dadka soo marka haday saa iskugu imaadaan hadii la dhaho kowda luuliya loo dabaaldegaya taloma laga hadli lahaa wadaadada hadda macnaha mawliidka warmaha iyo seefaha u haysto waa shirkida ku hayo ma waxay dhihi lahaayeen ma dhaha ma maqashay iyadoo le macnaha waa xaaraan waxa laga dhigayo maanta magaalada ma maqashay haddii kowda luuliya loo dabaaldegayo meesha la iskugu imaado oo weli macnaha waxaa weeyaan hees iyo tumasho iyo niika lagu ciyaaro hal wadaad oo ka hadlayo markiis oo leh wixii xala meesha lagu dhigay wax banaan ma ahay mawliid ma la sheegay nabiga loo farxaya waxa weeyaan warmahooda iyo seefahooda soo qaadanayaan meesha ayaa laga dhawaaqayaa waxa ku maseeya ma garanayo ilaa qowlkii shaacirka uu yiri mooyaan shaacirka muxuu yiri وكم شعرة طالت على جذر جاهل وما تحته إلا الغباوات والجهل شاعرك لو حويني وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم فربضنا الروح أيبين اليوم معناه وحاويان قول صحيحة وعرمد يوردن أي صحيح يالين وآفته إلا هيستوح كلامه وآفته آفلا هيستنه من الفهم السقيم فهم كيس أيا بكوه وجنو مرقا شاعر كلام وحوي لا يخدعنك اللحى ولا الصور فتسعة أعشار من ترى بقر بيتك وحاول فسر ما لكن رجع عربي غير وقرر ياو فتسعة أعشار من ترى بقر مركا نبي مركا وانكو فرحينا وحان اسكوغو نمين فرحوه مين لو دافي ما بلهم
maxaan meesha iskugu nimid farax waxaa la yidhi soomaalida waxay tidhaahdaa kor waayeel waa wada indho ruuxa hadduu ruux weyn yahay asagoo dhan waxana waxaa laga wadaa ruuxii xuna ruuxa wuu garanayaa wixii xuna ruuxa wuu garanayaa soo ma aha af jooga looma adeego nin kastaba asaga ayaa macnaha waxaa weeyaan ayaa sawir ka bixin doona iyo miihaal waxa caawa meeshan ka dhacay wey oo khayrka wey waxaa weeyaan walaqad intafaca bihi alkaafir faraxa nabiga lagu faraxo gaal ayaaba ku intifaaca gaal ayaa ku intifaaca xadiidkii hadda sheekh uu sheegayay ninkii gaalka ahaa abulahab oo ay suuradda ku soo degtay ayaaba ku intifaacay farax uu farxay licidqihi huwayba uu xoreeyey wey markay ugu bishaaraysay in macnaha waxaa weeyaan wiil uu dhashay habeenkii nabiga la dhalay markay huwayba oo addoontiisii ahay oo abulahab uu lahaa ayaa u bishaarayso waxay tidhi walaalkaa wiil baa u dhashay wiil ayaa u dhashay faraxa uu farxay wuxuu yidhi xorba weli wuxuu kula dardaarmay inay nuujiso faraxii uu farxay faraxii macnaha uu farxay ilaahay muxuu ogaabaa laguda maalin kastoo isniin ah soo nabiga isniin lama dhalin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nabiga isniin baa la dhalay soo ma aha maalin kastoo isniina abulahab oo qur'aanka uu ku soo degay oo la haydaariyey magaciisana lagu sheegay maalin kastoo isniina farahiisa dhexdooda ayaa wuxuu ka nugaa biyo qabow oo janno ah muxuu ku helay faraxa uu ku farxay nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh sidaa daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay ibnu naasiriiddiin addimishqiy kitaabkiisa la dhaho مولد الصاري في مولد الهادي أي وحكول إياه إذا كان هذا كافرا جاء دمه هدو يهمد كان قال أو قرآن كأوكسا أروري عينيس أو وتبت يداه في الجحيم المخلدة قلبتي سكع عمودنا معنا وحاويان أي هلاك سمين أولي من النار كواري أتى أنه هذا سوء أرورتي في يوم الاثنين مالك إسنين دائما سجوتا يخفف عنه للسرور بأحمد معناها ما سجوتا النار تلغف الله فرح وكفرحي النبي محمد فما الظن بالعبد الذي كان طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا أيولي محاضر ملايين إيسا أظن موحدا وإلهي الرمي وولي قيسك كفر حاجة النبي محاضر مركب ملايين إيسا هذا أولانا ابن ناصرالدين الدمشقي يوها شيخها ابن حجر الأسقلاني شيخ السوي يو أرض يوها حافظ العراقي أرددي سأيوها ابن ملقن رجع كسر تخرجي أيوها وشيخ ابن حجر العسقلاني كتاب الله فتح البارية وشرح صحيح المسلم كا شيخ لها شيخ سوية شيخ ترينها هي أشعارته وحولية هي شيخ الله علامة الحافظ شمس الدين ابن الجزري محاسقنا ليه وحولية هي كتاب في صلاة محاسقنا عرف التعريف كتاب خاص عرف التعريف بمولد الشريف هي كتاب هذا كتاب وحولية هي فإذا كان هذا مركو كسر شيكيي سيدا معناها لو أبا الجودة إلهي وجنة معناها وأقولنا حريص معنى كستو سنين أبو لهب أيها وحولي فإذا كان هذا أبو لهب الكافر هدو يهي متكن أبو لهب في قال كاها الذي نزل القرآن بدمه قرآن كان أوكسا أروري أساقا هيداري تيسيو عيس أوكسا أروري جوزي في النار بفرحه
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لقوا أبا المريي نار تقحذين فرحي وكفر حي نبي محمد هبيك لك صلى الله عليه وسلم. فما حال المسلم محاضر ملايين إيسا مسلم كحال كيس الموحد وإلهي كريالك ومن أمته كمد صلى الله عليه وسلم يسر ويفرح وكفر حياه نبيك بمولده كفر حي نبيك ترشد إيسا محمد كدوان دقاي ويبذل ولو وحوب ليبيا ما تصل إليه قدرته وحاو أوده وحو أوده أي ولا بحنايا حفلت هذا الله دقاي سو خرج كما بحن خرج كحاجة لك يعني ضد محسنين أو نبي قد جاء أيام بحي صوما وحولي يا شاخة ويبذل وحو ليبيا ما تصل إليه قدرته وحو أوده وقال قرار لا بقى شام بقى من متبرتيس أي قرأ معناها قرأ أي أو تبتاول مركا كل يبذل ما تصل إليه قدرته إيبا خرج قبحنا يوفى أبو في محبته نبي قد جعل في سايق قبحنا صلى الله عليه شيخ مركب حلية ابن ناصر الدين أنا وحلية الجزري وحلية شمس الدين الجزري وحلية لا عامر فيه شيخ وقار لا عامر فيه بان وقار خالق عامر فيه إلهي حياته إلى أبو ريبا وقارنا ياي إنما يكون جزاؤه أبا المردي سوحين ونيسا من الله الكريم وكهل أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم من إلهي جنة قريب ويان أبا المردي سوى هذا كان يسروح أنا بقى فرحي سو حاضري جاهل خرج كل بحيي أود قليل وسوجي وخدمي إن جنبوا قليو أيو أغاني وحو السمين هينا أيتهي نبي جاء في صلوات ربي وسلامه عليه إمام الترمذي يا أبي داود وحيصو ساريا نبي أيام وحو آدي دقاء أيو نبي جهاد بو آدي نبي مركو جهاد آدي قبل أفريكان ومدو أيام ندرتي محيط ماذا كن ندر ولا يقان ندر والندر الصغير ندر ويام ما قال الله ما هي ندر وين ندرتي محيكون قبل كن ندرتي لئن رجعك الله صارما نبي مركو صوم مغلي أصدقوا معنا وحاويان إلهي صوبك بالي ولي صوب قوليستي أي نبي قوتك صلى الله عليه وسلم وفرح أول وين فرح ذي قبل نبي ما دام صوم مغلي أي يكون فرح محيتي نبي إلهي يوان ندري ومحاكون ندري لئن رجعك الله صارما أو معنا صحيحة أدينه صارما قد إلهي كسوء أن أضرب إن أنقرأتم على رأسك مدى هذا الدشيس وفي رواية بين يديك أديك هرطالة بالدف إن أنقربانك قراءه وأتغنى ولبا أن هاسو ولبا أن كأمانه دربان أن كون قراءه كون أمانه نبي لم يفكوي نهو يغفقه أنيك هاي أماني ميو نبي لي نإلى نشرك مرحبا ميو نبي لي نبي محوكو جوابي أوفي في ندرك نظرك هذا أوفي نظرك هذا أوف قبل الدربان كبي نبي كنتم قراء وين أمانتي وياه صلى الله عليه وسلم مرقى وحاويان وحبا معنا وحاوين ددك ماذا وفاء عن قراني الروح اسكبها اليوم ومبعض لك قاعد عليا نبي قال ما أمانك لكن كتب هذا أردن أيكو قراني شيخ لده ابن سيد الناس كتاب بقر بقول يتضبات السحابي أو نبي أمانتي وهلك تسألوني مرة
marka nadarka wuxuu yidhi oofi oo hawshaada qabsuy marka wuxuu leeyahay imaamu khadaabi asagoo ka hadlahayo darbu dafi durbaan la garaaco laysa mima yucaddu fii baabi daacaat daaca laguma tiri allatii yatacallaqu biha nuyuub durbaan la garaaco hadduu ruuxa ku nadro